وأنا وناكسن إذا لهانتين بداو ضيال ميل كستو دافع دنيا نقد ونيسان كسر دواد أمر كلا يولي ببرنامج كي dhacdooyinka la yaab kala ha telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland daawadayaal waxaanu idin leenahay waqtigu haydii wacnaado intay maalin u tahay maalintu haydii wacnaataanu leenahay intay habeen u tahay habeenku haydii wacnaadaan leeyahay intay galab u tahay galabtu haydii wacnaataan leeyahay barnaamijka dhacdooyinka la yaab kala iyo toddobaadkana waxaan idinku hayaa xubno aad u xiiso badan oo isleeyahay markaasi dadweynaha ku xiran barnaamijka dhacdooyinka la yaab kale iyo waliba telefishinka qaranku waqtigooda haydi kula qaataan oo haydi kula nastaan dhacdooyinkan ku soo qaadan doona daawadayaal waxa ka mid noqon doona gabadh doonaysa inay World Genius Record-ka ku gashay inay timaheeda ku jirto baabuur xajmigiisu weeyahay waxa kaloon daawadayaal idii hayaa dhacdo kale oo ah nin isna World Genius Record-ka kaga qayb galaya in jirkiisu soo jiito dhammaan biraha magnetka ka samaysan dhacdooyinkaas iyo waliba kuwa kale oo aad u xiiso badan ayaa qadarka nus saac ah ee soo socda daawadayaal aan idii soo gudbin doona hadii Allaha awood leh uu iraahdo dhacdada ugu horeysa iyo waliba barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadkan aan soo qabto waa dhacdo ka dhacday wadankaasi Faransiiska nin isku dayay dhacdo ah in uu baaskiilad ku dhex kaxeeyo biyo quruurad ku dhex jira isagoo markaasi aan neefsanayn ayuu rabaa baaskiiladaasi inuu masaafo ku dhex wado haddaba waxa la eegi doonaa ninkan u dhashay wadankaasi Faransiiska inuu isku daygiisana ku guuleysto waxa laga rabaa inuu baaskiiladaasi ku dhex kaxeeyo biyahaasi isagoo aan neefsanayn bal haddaba dhacdada ugu horeysa iyo waliba barnaamijkeena dhacdooyinka iyo waliba shuruudaha ninkan laga rabo faahfaahinta xubinta ayaynu ku ogaan doonaa ee aynu jaleecno dhacdadan ayaa daawadayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa dhacdo ka dhacday wadankaasi France amaba Faransiiska dhacdadan ninka soo bandhigaya ayaa waxa uu rabaa inuu World Genius Record-ka in uu ku galo oo kaga qayb qaato in uu baaskiilad ku dhex wado quruurada biyaha ah muddo aad u dheer isagoo aan markaasi neefsanaynin isla mar ahaantaana ku dhex jira biyahani waa dhacdo aad u khatar badan daawadayaasha waxaan uga digaynaa inay isku dayaan dhacdooyinka noocan oo kale ah haddaba ninkani ayaa waxaynu eegi doonaa inta daqiiqadood ee uu biyahani ku dhex jiro isagoo baaskiiladan ku dhex wada waxaa kaloo eegi doonaa bal masaafo intee leeg ayaa uu ku dhex wada karaa baaskiiladan isagoo aan neefsanayn isla mar ahaantaana biyahani ku dhex jira Simple human biology will tell you that when we use our bodies in exercise, we use a great deal more oxygen from our lungs, which means if Ludovic was to sit underwater not doing anything, he could probably remain there for quite some time. However, making him cycle at a vigorous pace, and he will be using up 5 times more oxygen and quickly running out of breath. This record attempt is extremely difficult, which is why he is in fact President de la Commission Apnée. So, if anyone can do this, then he's the guy for the job. Here's the man himself in action, cycling at a nice steady rhythm. weli waa aynu la soconnaa isagoo aan marnaba neefsan in uu baaskiiladan ku dhex wado biyahani bal aynu eegno gunaanadka He can of course return to the surface for air at any time. He's going at quite a pace really, and looking very comfortable. The secret is to slow the heart rate right down, although in this case that is extremely difficult due to the exercise he has to perform on the exercise bike. This record attempt involves a serious amount of mind over matter. And of course, a very large set of lungs. Yes indeed there is, poor fellow. He must be gasping for breath by now. Good clean sea air is what he needs. But if you want a Guinness World Record, you've got to be prepared to push yourself to the outer limits, and if that means having your lungs gagging for a breather, then so be it. Guinness World Records do not grow on trees, you know. You've got to earn them with guts, determination, and often a very unique skill that nobody else has thought of, which is precisely what Ludovic here has worked out.
He's been cycling now for well over 1 minute, pushing 2 minutes in fact, and he cycled well over half a kilometre underwater. That's absolutely staggering. How has he not run out of breath? Well, I do not know. In fact, the record for the longest time to hold one's breath voluntarily is held by American Robert Foster, who managed to hold his breath for a staggering 30 minutes, 42 and a half seconds under 3.05 metres of water in a swimming pool in California. Impressive, I know, but enough about him. Let's get back to Ludovic. Great support from the crowd. That is absolutely amazing. You may well look happy, my friends. I'll tell you what, I can't even hold my breath for 30 seconds. Anyway, he's managed an incredible 702 metres. That's 2,303 feet cycled underwater and a well-deserved Guinness. ninkani ayaa waxa uu biyahani ku dhex jiray isagoo baaskiiladan ku dhex waday isla mar ahaantaasina aan neefsanaynin 702 mitir. sidaas ayaa uu ninkani ku galay buugga dhacdooyinka la yaab kale, waxaanay dhacdadani noqotay dhacdadii ugu horeysay ee nooceeda ah ee World Guinness Recordka lagu soo bandhigo. aynu intaasi kaga nimaadno dhacdada ugu horeysay iyo waliba barnaamijkeena dhacdooyinka la yaab kale iyo toddobaadkani aan soo qabto dhacdada inoogu xigta ee inoo labayn doonta toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka la yaab kale. waxaynu ku soo qaadan doonaa tiro dad ah ama wadar dad ah oo u dhashay wadankaasi China ayaa isku dayay dhacdo aad u cajiib badan oo markii ugu horeysay nooceeda ay ku soo bandhigeen buugan isagu lagu kaydiyo waxyaabaha cajiibka badan. dhacdadan ayaa waxay tahay inay si isku xigta iskugu jiifsadaan iyagoo aan markaasi midnaba ka kale ku dhacayn amaba ay isku taabsadaan. dhacdadan ka dhacday wadankaasi China daawadayaal waxba yaanu hadalku ila fogaanay, bal ila ogaada oo ila arka waxyaabaha ay sameynayaan dadkani. dhacdadan oo dhifya naadir ku ah dhacdooyinka la yaab kale ayaa waxaa soo bandhigaya dadkan aadka u tirada badan oo ka mid ah dadweynaha ku dhaqan wadankaasi China, waxaanay rabaan inay World Guinness Recordka kaga qayb galaan in midkoodba ka kale taabsado iyaga oo si nidaam leh markaasi isku taabsanaya oo iskugu jiifsanaya. bal waxaynu eegi doonaa isku daygoodani inuu ka khaldamo iyo inuu u saxmo oo sidii loogu talagalay ay isku taabtaan isla mar ahaantaana wadarta intaa leeg ee dadka ahi ay World Guinness Recordka ku galaan dhacdadani ee daawasho wanaagsan. 人体多米诺原吉尼斯世界纪录是在2000年新加坡圣淘沙海滩上创造的，当时的人数是9234人，而现在我们这里的人数已经超过了1万。可是只要一个人动作不标准，就不能收入纪录。按照吉尼斯世界纪录的规则，选手们必须坐在地上，前一个人倒下时必须用身体触碰后一个人，依次倒下。 整个记录完成花了1个多小时。 weli waxaad arkaysaan sida taxadarka leh ee midba ka ku xiga ayar ugu jiifsanayo una taabanayo. bal aynu eegno gunaanadka. 耐压的能力和互助合作的团队精神。鄂尔多斯半人多米诺活动成功，现记录为10267人，是一项新的吉尼斯世界纪录。 dadkan u dhashay China ee tiradoodu aadka u badnayd ayaa sidaasi ku wada galay World Guinness Recordka kadib isku dayga ay isku dayeen ee ay soo bandhigeen dhacdada noocan oo kale ah, waxaanay halkaasi ku hantiyeen oo mid ka mid ah u gudoomay abaalmarinta uu bixiyo buugga dhacdooyinka la yaab kale. dhacdadani waa dhacdo aad u khatar badan. waa gabadh World Guinness Recordka doonaysa inay kaga qayb qaadato in ay timaheeda ku jiido baabuur uu culayskiisu dhan yahay 2.5 tan. haddaba gabadhan ayaa waxa laga rabaa baabuurkaasi culayskiisu dhan yahay 2.5 tan in ay ku jiido waqti gaaraya 1 minute gudaheed masaafo dhan 20 mitir ama 20 talaabo. daawadayaasha waxaan uga digaynaa dhacdooyinka khatarta badan ee ay halkan ka daawadaan inaanay isku dayin. bal gabadhan ayaynu eegi doonaa isku daygeedani inay ku guuleysato ee ila jaleeca.
gabadha dhacdadan soo bandhigaysa ayaa iyadana isku daygeedani waxa uu yahay inay timaheeda ku jiido baabuur uu culayskiisa uu gaadhayo 2.5 tan iyadoo rabta inay jiido masaafo gaadhaysa 20 mitir 1 minute gudaheed bal isku dayga gabadhan ayaynu jaleeci doonaa. As she set a Guinness World Record by pulling a 2.5 ton hearse with, yes, you've guessed it, just her hair. Anastasia, who performs with the Circus of Horrors, hooked the hearse into her plaited hair and pulled it for 20 meters in just over a minute. gabadhan ayaa daawadayaal waxay ku guulaysatay oo World Guinness Record-ka ku gashay inay timaheeda ku jiido baabuur uu tankiisu dhamaa 2.5 tan iyadoo jiiday masaafo gaadhaysa 20 mitir muddo 1 minute gudaheed. gabadhan ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay ee timaheeda ku jiida baabuur culayskiisu intaasi gaadhayo. dhacdadana waxay ka yaabaysay dhammaan dadkii iyagu daawanayay. Christine ayaa lagu magacaabaa ninka dhacdadan soo bandhigaya. waxa uu rabaa inuu keeno oo uu soo kordhiyo dhacdo ah in uu labadiisa gacmood inta uu ku istaago kolna lugihiisa korgeeyo kolna uu hoosgeeyo isagoo markaasi meel kale taabsanaynin. ninkan ayaa hadaba waxa laga rabaa inuu 11 jeer sidaasi sameeyo. ma u suurta gali doontaa? waa mid aynu ku ogaan doono faahfaahinta warbixintan aanu ka diyaarinay. ninkan isagu raba inuu isku daygani soo bandhigo ee daawasho wanaagsan. Christine waa ninka soo bandhigaya isku daygani. waxa uu rabaa inuu soo bandhigo oo World Guinness Record-ka keeno dhacdo ah in uu labadiisa cagood inta uu ku istaago dabadeedna uu cagihiisa marna korgeeyo marna uu hoosgeeyo sida ciyaarta jomastikada oo kale. haddaba ninkani ayaa waxa laga rabaa inuu 11 jeer oo isku xigta isagoo labadiisa gacmood oo qura ku taagan in uu sidaasi sameeyo. talo ma u suuro gali doontaa? bal Christine ninkan lagu magacaabo ayaynu jaleeci doonaa iyo isku daygiisani. Okay, Christian, cuando quieres. No hay tiempo, simplemente hasta que tú digas hasta aquí. Perfecto, ahí lo tenemos. A Christian. Vamos, Christian. weli daawadayaal waad arkaysaan waa wadaa marna dhulka kuma u dhicin labadii gacmood oo qura ayaa uu ku taagan yahay. aynu eegno gunaanadkaynu ku guulaysto. ¡Ánimo! Dificilísimo. Está cansado, vamos a ver si aguanta un poco más. ¡Ánimo! Ya sabes que no hay tiempo, lo que tú tardes. Hasta aquí. Cristian, muy bien, campeón. Hay que hacerlo. Qué fuerza en los brazos hay que tener. Los Resistencia. Sobre todo resistencia. ¿Crees que lo has logrado, Cristian? Creo que sí. ¿Tú crees que sí, no? Te has ido contando, yo no lo sé. La verdad, yo estaba tan alucinada viéndote que no contaba la cantidad de flexiones. Vamos a ver lo que nos dicen nuestros jueces. Cristian, ven aquí a mi vera. Ralph, ¿tenemos nuevo récord del mundo o no? Bueno, Carmen, Cristian ha hecho 12 flexiones. ¡Tenemos un nuevo Guinness World Record! ¡Enhorabuena! Muy bien, Cristian. Nuevo récord del mundo, Guinness World Record. ninkan Christine lagu magacaabo waxa uu 12 jeer sameeyay isku daygiisani ahaa inuu labada gacmood oo qura isagoo ku taagan inuu cagiisa marna korgeeyo marna uu hoosgeeyo. waxaa laga rabay inuu 11 jeer sameeyo balse hal mar ayaa uu dhaafiyay. sidaas ayaa uu ninkani
ku guulaystay oo isku daygiisii ugu dhaboobay waxaanu sidaasi ku galay buugga dhacdooyinka la yaabka leh ee World Genius Record-ka. ¿Quieres decir algo a tu entrenador, a tu madre? Bueno, sobre todo darle un saludo a mi familia y sobre a mi entrenador también. A ver la medalla que te pone Sheila. Enhorabuena. halka aad barnaamijkan dhacdooyinka la yaab kale aad kala socotaan daawadayaal waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland xaruntiisa magaalada Hargeysa. daawadayaasha waxaan uga digaynaa inay isku dayaan dhacdooyinka khatarta badan ee ay ku daawadaan barnaamijkan dhacdooyinka la yaab kale. dhacdada aan markan daawadayaal soo qaban doona ayaa waxay tahay nin isku dayaya isna inuu World Genius Record-ka ku galo dhacdo ah in uu kubad inta uu fartiisa ku wareejiyo dabadeedna biro uu dul saaro oo ay kubadahaasi birahaasi ku dul wareegaan. ninkan ayaa hadaba World Genius Record-ku waxa uu ka rabaa inuu kubada gaaraya 27 xabadood uu ku dul wareejiyo birahaasi oo aanay midkoodna istaagin. bal isku dayga ninka dhacdadan soo bandhigaya ayaynu eegi doonaa inay u suurta gasho ee daawasho wanaagsan. ninkan isku dayaya dhacdadan aynu soo qabanno sidaad hore ku soo maqasheen ninkani waxa uu isku dayayaa inuu kubadahan uu hayo inta uu wareejiyo dabadeedna uu geliyo godadkan yaryar ee soo taagan. haddaba ninkan ayaa waxa laga rabaa inuu 27 xabadood oo kubadood oo wareegaya inuu geliyo godadkani isla mar ahaantaasina inta lagu guda jiro dhacdadani aanu midkoodna istaagin. waxaa kaloo la eegi doonaa bal inta minute ee uu ku dhamaystiro. bal isku dayga ninkan ayaynu jaleeci doonaa markana daawadayaal. That's moving. If I get this, I'll have 27 on the rack. One in each hand will be 29. So when I get the one in my left hand, hopefully that'll be breaking my record if I get that far. So you have to go quick because those rules are running all the time. I'll get him, Mike. So what? You've got it hooked to your feet there, Mike? Yep. I don't think I have any shoe endorsements anytime soon. I don't know. weli waxaad arkaysaan in uu wado in kubadahani uu geliyo markaasi birahani kubadihii uu geliyeyna weli midna ma istaagin. bal aynu eegno gunaanadka inuu 27kaasi xabadood ee loo diray in uu ku guulaysto ama in uu ku guulaysan waayo labadaba. It's kind of moving lopsided. Is that okay? Yeah, it's okay. Mike, you don't seem to be putting as much into these ones. You're just spinning them a couple of times. Yeah, now it's a race against the clock. Okay, well, I'll shut up. No, please talk. I want to hear some noise. Go, Mikey. That's 25. Go, Mike. 26. Equal 27. 28. 5 seconds. 28. daawadayaal ninkani waxa uu World Genius Record-ka ku galay oo uu ku guulaystay inuu 2 minute iyo badh ku dhamaystiro inuu 28 xabadood oo kubadood oo wareegaya uu geliyo birahani iyagoo aan markaa midna ka istaagin. dhacdadanna waxay noqotay dhacdadii nooceeda ah ee World Genius Record-ka lagu soo bandhigo. ninkanna waxa uu ku guulaystay abaalmarinta uu bixiyo buugga dhacdooyinka caalamiga ah ee World Genius Record-ku. aynu intaasi kaga nimaadno daawadayaal. dhacdadani way ka duwan tahay dhacdooyinkii hore ee aynu soo aragnay. waa dhacdo aad u cajiib badan. waa nin jirkiisu soo jiidanayo dhammaan biraha magnetka ah ama waxyaabaha birta ka samaysan.
bal ninkan ayaa haddaba waxaynu eegi doonaa sida uu jirkiisu usoo jiidanayo waxyaabaha magnadka ah amaba birta ka samaysan iyo weliba bire intee leeg ayaa uu jirkiisa ku qaadi karaa isagoo jirkiisu soo jiidanaya birtaasi. dhacdadan yaanan idinka hordhicin ee faahfaahinta ila daawada. A Georgian man has set a new record for magnetic body attraction. dhacdadan waxaynu ku soo qaadan doonaa ninkan oo u dhashay waddankaasi Georgia ayaa buugan dhacdooyinka la yaab kale waxa uu ku soo bandhigay dhacdo aad loola yaabay isla mar ahaantaana aan buugan World Guinness Record marnaba aan lagu arag. dhacdadan ayaa ah in jirkiisu soo jiito dhammaan biraha xadiidka. hadda waxa uu jirkiisu qabsanayaa sidaad arkaysaan daawadayaal malqacadahan birta ka samaysan oo dhan 53 malqacadood. waxaad arkaysaan in laabtiisa ilaa dhabarkiisa ay taxan yihiin oo aanay wax kale ahayn balse uu jirkiisu soo jiidanayo. He was even able to walk around without any of the spoons falling off. sanadkii 2011 ayuu isku dheelitiray oo jirkiisa ay qabsadeen malqacado gaadhaya 50 malqacadood laakiinse hadda waa uu ku kordhaafiyey oo jirkiisu wuxuu qabsaday malqacado gaadhaya 53 malqacadood. The 41-year-old sports coach balanced 53 spoons on his chest and back, breaking his own world record after previously balancing 50 spoons in 2011. kuma koobna in jirkiisu soo jiito biraha oo kaliya laakiin waxaa kale uu soo jiidan karaa biraha waraaquhu ku dhajisan yihiin sida uu inoo sheegay isku daygana waa uu isku dayay. It's not just spoons which stick to his body either. He can also attract metal sheets to his chest and pull along a car. But he doesn't plan to stop there. When the time comes, I'm going to move airplanes, then empty train carriages, something like this. I won't play all my cards at once. ninkan ayaa waxa uu yidhi marka dambe waxaan rabaa in aan dhaqaajiyo diyaaradaha anoo isticmaalaya jirkayga magnadka ah. 2 sano ka hor ayaa waxa uu awood u yeeshay inuu qaado tiro badan oo ah biraha aadka u culus ee loo isticmaalo feerka lamana garanayo sida uu jirkiisu u awooday arrinkaasi. The kickboxing trainer only discovered he had the ability to stick metal objects to his skin a couple of years ago, and it's not known how or why his body is able to do it. ninkani ayaa sidaasi ku galay buugga dhacdooyinka la yaab kale. dhacdadanna waxay noqotay dhacdo aan inaba caadi ahayn oo buuggan World Guinness Recordku ninkaasi ku guddoonsiiyey abaalmarinta uu bixiyo World Guinness Recordku. daawadayaal waxaan soo gaarnay dhacdadii ugu dambeysay iyo weliba barnaamijkeena dhacdooyinka la yaab kale iyo toddobaadkani waxaynu soo qaadan doonaa nin soo bandhigaya in uu biyo baraf ah amaba baraf hoostii ku socdo isaga oo aan xidhnayn waxyaabaha lagu dabaasho amaba qalabka dabaasha loo xidho amaba qalabka barafka loo xidho. ninkan ayaa isku daygiisan aynu eegi doonaa. waxaa laga rabaa ninkani inuu socdo masaafo gaadhaysa 15 mitir isagoo aan markaasi wax dhara xidhnayn balse xidhan oo qura shorti. isku dayga ninkan inay wax khatar ka soo gaadhaan iyo in kale ayaynu faahfaahinta dhacdadana ku ogaan doonaa. ninkana daawadayaal aad hore u soo maqasheen ayaa isku daygiisani waxa uu yahay in uu barafkan hoostiisa ku socdo isagoo aan xidhnayn markaas dharka lagu dabaasho amaba barafka laga xidho. waa dhacdo aad u khatar badan. waxa uu rabaa masaafo gaadhaysa 15 mitir inuu barafkan hoostiisa ku dabaasho oo uu hoos maro isagoo aan markaasi waxba xidhnayn. dhacdadan ayaa waxaynu eegi doonaa ninkani inay u suuro gasho iyo in kale inay wax ka soo gaadhaan inuu ku guuraysto iyo inuu ku guuraysan waayo intaba. Just to slow down his heartbeat. And he's off. A huge breath and he's under. The danger involved here is absolutely colossal. For a normal person, the body temperature would drop so much in just a few seconds in this water, the death would almost certainly follow. Hypothermia could set in at any moment. But not for Vim, because he has perfected an ancient yoga art called Inner Fire.
weli waxaad arkaysaa ninkani inuu barafkan hoostiisa socdo isagoo aan weli wax khatara la kulmin. Your heart out. Look at how clear that water is. Just as well, because you really want to be able to see where you're going in this one. 50 meters. He's nearly there. Just a tiny bit more. Cameramen, safety men, just in case something goes wrong. He can see the light. Yes, there is light at the end of the tunnel, or in this case, ice. Just a little bit more. And there you go. He's made it. Absolutely astounding. Now, quick, get him out, wrap him up, and get him warm. Get that core temperature back to normal. This is where it can all go wrong. This is where it's serious. ninkani waxa uu soo socday masaafadaasi gaadhaysa 15 mitir. waxaad arkayseen daawadayaal inaan wax dhibi ka soo gaadhin isagoo aan xidhnayn dharka lagu dabaasho amaba barafka laga xidho, isagoo barafkaasi soo hoos socday isagoo bilaa dhar ah. sidaas ayaa uu ninkani ku galay buugga dhacdooyinka la yaab kale. intaasi daawadayaal waxaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii dhacdooyinka la yaabka lahaa ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland. barnaamijkan dhacdooyinka daawadayaal dhanka kamarada iyo lightinka waxaa aalaaba noogu sugan oo noo haga cabdi cumar jibriil. anigoo jamaal axmed naasir ayaa barnaamijka halkan idinka soo jeedinayay, aniga iyo weliba bahweyntii kale igala qayb qaadatay. waxaan idinku dhaafayaa barnaamij noocan oo kale ah intaynu ku kulmi doono is aragti maqal dambe koor. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.